waxay aqbaleen inay doorashada ururada ka qayb galaan macno kale leedahay inay guddiga diiwaangelinta tagto oo waraaqihii foomkii ka soo qaato oo aan ahayn in la tartamayso Hillaac iyo Waaberi iyo Kaah iyo kuwa soo socda ma jiro shacbiga yaa la wareerin hadday ku go'aan baarlamaanka waa la isu joogaa cidda sharciyada ku adkaatay baarlamaanka waa loo wada joogaa maray waxa la isweydiin karaa adigu waxa tahay maarayaha hay'adda dulista iyo hawada ee Soomaaliland shaqadaadu waa garoomada arrimahaas horumarintooda wax ka qabashadooda maxaa arrinta siyaasadda iyo xisbi u jawaabista iyo waxa ku galiyay bal waxaan maanta weydiinayaa xisbiga wadani xogayiisa guud iyo murashaxiisa waxaan weydiinayaa waliba carabtu waxay tiraa ataxadda waan challenge garanayaa waan carinayaa bal weligood kilib ay leeyihiin Soomaaliya kula hadlayaan ama farmaajo Somaliland maagay ee wax walba ku sameeyay ama xasan ka maanta inoo soo buuayay madaxweynuhu jawaabayay bal erey ay yiraahdeen ada xasan oo wariye ay ka soo saartay xisbigan dhan ee 40% dadka shacbiga reer Somaliland helay ee murashaxoodu aanu erey oran kareen farmaajana aanu oran xasanna aanu oran kareen soo arrin la baaro u baahan ma hogaamiye habeenka xamaran soo weerartan u jawaabaya haddii faras soo loogu keenana fuuli karaya haddii dadku dhaantayaan la dhaantayn karaya haddii waddanka la soo weerarina qorigiisa qaadan karaya bal waxaad weydiisaa khadar adigu hogaamiyaha wadawaadkii waxba ku dheeran maayo isagaa la dhan ka sheegay oo yiri right choice maaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo la yeelan doono maareeyaha hay'adda dulista iyo hawada ee Soomaaliland Cumar Cabdilaahi Cumar Sayid maareeyo marka hore soo dhawow marka labaad waxa jira khilaaf dalka ka taagan oo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka u dhaxeeya khilaafkaasi iyo u sababa wasaaradda runtii khilaafka siyaasiga Soomaaliland ka jira oo imika marxaladii ugu dambeysay ku jira dadka reer Soomaaliland markay qeexayaan waxa laga yaabaa inay xagga dambe ka soo bilaabaan oo waxyaabihii muuqmuuqday bilihii ugu dambeeyay ay dadka loo soo bandhigo ama xisbiyada mucaaradka ka hadlaan ama xisbiyada qaranka ka hadlaan laakiin khilaafkan asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay waa khilaaf sharci marka hore waxaanu ku tacalluqaa hanaanka doorashooyinka dalka loo geliyo keebaa soo horeynaya keebaa la dib loo dhigayaa sideeba qaranka loogu diyaarinayaa doorashooyinka soo socda ayuu khilaafkan salka ku hayaa haddaynu dib u yara noqono si aynu u taabanno halkuu khilaafku ka yimid markii madaxweyne muuse uu talada dalka ku guuleystay 2017 xisbiga wadani 80,000 cod ee lagaga helay bay diideen inay aqbalaan waad ogeydeen hogaamiyahoodu wuxuu mar waa nala boobay mar wuxuu yiri waa amaahinay marba kelmado aan runtii dadka reer Soomaaliland laaq ku haybiyo waxay qaadatay inuu natiijada runtii si fiican u aqbalo muddo wuxuu ku xigsiiyay inuu komishinkii doorashooyinka doorashada qabtay uu diiday la shaqeyn maayo muddadaas uu dalka komishinka keligii haystay xisbigaasi waddanka waxa ka khasaaray laba doorasho waan xasuustaa anigu madaxweynaha maalmaha waan la kulmay doorashada uu galay waxbiis ku guuleystay markii uu yiri magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka madaxweynuhu wuxuu diyaar u ahaa doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka inuu degdeg ku qabto cidda ku dhigtay 2 sanadood iyo dheeraad komishinkii hore la meereysanayay waa xisbiga wadani marka waxa dib u soo dhacay doorashadii baarlamaanka iyo deegaankii aynu gali lahayn 18 dhamaadkiisii ama 19 aynu gali lahayn ayaa 2011 ka timid mas'uuliyadda koowaad horta halkay ka dhalatay iyo cidda qaadaysa waa xisbiga wadani weey markii dambena waxa isku soo beegmay doorashadii golaha deegaanka tii guurtido sanad ka dambeynaysa iyo tii madaxweynaha doorashooyinka sida loo kala horeysiinayna shuruuc baa sheegaysa qodobka ugu muhiimsan maanta dadka reer Soomaaliland aan doonayeen inay fahmaan waxa weeye doorashada ururadu xeer number 4 wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor oo ahayd bishii June in dhammaan ururada siyaasadda u tartamaya ay soo diiwaan galiyaan 6 bilood markii madaxweynuhu bilaabay sharciga isagoo qodobka adeegsanaya uu bilaabay ay xisbiyada mucaaradku runtii ay jawaab aan fiicnay iyo maartay muran siyaasi ay dalka aad u sii galiyeen madaxweynuhu wuxuu ku socday 6 bilood ka hor ayuu dhigayay xeerka 14 in maartay ururadii la furo oo gudidii la magacaabo oo ma garanaysaay ururada dadka loo sheegay in 10 sano waqtigeedii la diyaariyay way caadiyanba ururada shahaadadu waxay dhacaysaa 26 December markay dhacayso maalintii dhacday shaqada lama bilaabay oo doctor baasaboorada xitaa laguma safro 6 bilood markay ka hadhaan marka waa 6 bilood ka hor buu process-ku bilaabmaya
marka processkii ururada ee 6 bilood ka hor bilaabay xeerkuna sheegayay markii madaxweynuhu bilaabayba ururadu waxay u arkeen furista ururadu inay tahay dawladda iyaga lagu soo qaaday manay la gaban inay dawladda ka iyo madaxweynahaba ergo hoose iyo mid dadbanba ay u diraan ay yiraahdaan anaga nadaah oo noo kordhi oo muddo kordhin xisbiyada u sameey oo doorashada dambe golaha deegaanka ee 2026 ka dhacaysa xisbiyada lagu tartamo ergey u soo direen madaxweynaha dhinac walba way uga soo direen marka xisbiyadu madaxweynaha waxay ku eedeeyeen muddo kordhin midoonayo laakiin cidda kaliya ay ku cadeeyeen muddo kordhin doonayaan madaxweynuhu wuxuu yiri xaq muwaadiniinta Soomaaliya ee in 10 sano mar la furo ummadda reer Soomaaliland uu iga sugayso shalay xisbiga waddan ku soo baxay xisbiga uu lagu waayay anigu ma hayeyna runtii maartay xaqa ma horisay karay markii uu kordhinta ka diiday madaxweynuhu xisbiyada bay iyaguna buuq bilaabeen aadna maartay dawladda loo kordhin maayo doorashadu wayna waqtigeeda ku dhacda buuqan aad arkayso dhan xisbiyada hala daayabay goob fagaara ah kamay oran laakiin inta ergey soo direen iyo adigu wariya tood baari karta ergooyinka ay soo direen soo diriyeen dawladdu waxay ahayd labadeenaba win-win situation marka madaxweynuhuna dee xuquuqda muwaadiniinta ilaa waa head of state qof kastoo siyaasadda danac kale madaxweynaha dee xaqi u haya dastuurka madaxweynuhu kama tanaasuli karo xuquuqda siyaasiga ee muwaadiniinta 10 sanaba mar xeerarka dalku ay u go'aamiyeen arinta in ayagu de irga hoose u direen anagu ma ogin runtii waxaan ognahay in irgada guud ay direen salaadiinta iyo culimada iyo ganacsatada ay guud arinta ka shaqeynaysay laakiin madaxweynaha Soomaaliland wuxuu burca ka sheegay in khilaafkii doorashada ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka u dhaxeeyay uu dhamaaday shalayna xisbiga mucaaradka ay wadani u hadlay arintaasi wuxuu ku tilmaamay mid nasiib darro oo miyaan arintaasi umuuqan in madaxweynaha iyo xukuumaddiinu aad sii horunaysaan khilaafkii madaxweynuhu dariiqa uu ku hadlay runtii sharciga ah iyo ka mucaaradku ay kaga jawaabayaan labada mid baa beena ayaamahana sheegay ka beenta xisbiyada mucaaradka shacbigooda beenu sheegay waxay tageen xafiiskii diiwaangelinta ururada markaas waxay leeyihiin waxaan u tagnay waraaqa sharciyana ma waxay aqbaleen inay doorashada ururada ka qayb galaan qurba jooga dadka xitaa waxay ku oranayaan markay shiraan dadkii baan si aan u dejino garan laan marka madaxweynuhu wixiisu isma bedelaan ilaa maalintii uu madaxweynuhu bilaabay ilaa maanta qowlka madaxweynuhu sharcigana uu waafaqsay waana isku mid cidda taageerayaashana war hoose u sheegaysa waxna halkan ka wadaa waa iyaga ayaamahana cadaynay waxaanu eegnay maalinta madaxweynuhu hadlay deadline-kii baa soo dhawaaday ururada diiwaangelinta way diidanayeen deadline markuu soo dhawaaday waqtigu soo dhawaaday dadkoo dhan waxay eegayeen bal in xisbiga wadani aqbali doono inuu systemkan galo oo macnaheedu inuu la tartamo ururadan kale macno kale leeyahay inaad guddiga diiwaangelinta tagto oo waraaqihii foomkii ka soo qaado oo aan ahayn in la tartamayso hilaac iyo waabari iyo kaah iyo kuwa soo socda ma jiro shacbiga yaa la wareerin waxa weeye xafiiska diiwaangelinta markay yimaadeen saddexdii xisbinimaha ku galaan magaca xisbi tartanka ku galaan macnaheedu waxa weeye laakiin ururadii tartamayay soo baxayay bay la xuquuq noqonayaan xagga tartanka marka xataa xafiiska ay tageen baan runtii ay run ka sheegay madaxweynaha warkiisuna wuu cadi laba doorasho ayaa dalkan ka dhacaya ta ururada soo horeynaysa saddex xisbi qaran marka la heerata madaxweynaha la helaya taasana sharciyada waddanka ku qotontaa dariiqaasana lagu socdaa haddii ay cabasho ka qabaan dariiqa madaxweynuhu uu raacay sharciga awal de waxay lahayn waxaan uga dacwoonaynaa hab fawda waxay lahayn carruurtu waxay isu dhigto xabadda wax la mudaharaad baan aan loo ogolaan ku baaqayaan laakiin imika waxa muuqata inay baarlamaankii wax ka raadinayaan dariiqi sharci ku soo noqdeen baarlamaankuna waa ku isku qaaday shalay toole yiri baarlamaankii baan runtii aanu xeerkii wax ka bedelaynaa iyadoo kooramkii aanu buuxin haddii baarlamaanku xeer hoosaadkiisa uu dhameystiran yahay de waxa weeye sharci buu noqonaya laakiin haddaan xeer hoosaadkii u dhammaystirnayn oo kooramkii aanu buuxin de waxa weeye muxuu ahaayey arrintaas de arrin laakiin sida xeer hoosaadku dhigayo 52 mudan ayaa goluhu ku furmay marka wixii ka dambeeyay doodi way sii socotay oo goluhu wuxuu ku furmay 52 mudan runtii goluhu 52 ku furmo laakiin waxa weeye xitaa wararka soo baxay imka waxay sheegayaan in ajendaha lagu diyaariyay mooshinka markii xubnaha muxaafidka xildhibaanadu golihii furmay ee qayb ka mid xitaa salaad tageen qayb ka mid ay maartay hawlo ay leeyihiin dibadda u baxeen in golaha lagu dhex sameeyay mooshinka gaarsiisa
oo runtii maartay dhoobe eriyo ku jirin qorshihii subaxii xitaa lagu furay xitaa taas dhib ma laha waxa weeye sharci marka la unkayo kuma dhamaado baarlamaanka kaliya dariiq buu maraa guurti buu maraa madaxweynuhu maraa procedure buu leeyahay procedure-ka mid ka mid ah haddii uu ku noqdo xeerkan kan ay imka wadaan laftiisu hadduu ku noqdo maalintuu noqdo aqbali maayaan xisbiyada mucaaradka oo odhan maayaan dariiqii awoodeen baa halkaa kusoo noqday odhan maayaan laakiin maalintaasay u gudbayaan carruurta xabad haysu dhigtay iyo waddo kale oo qardajeexa ay marayaan hadday ku go-aan baarlamaanka waa la isu joogaa cidda sharciyadda ku adkaatay baarlamaanka waa loo wada joogaa laakiin waxa weeye dariiqa imbariyay in dee ay salamar salaadiinta soo diraan inay mar ganacsatada u tagaan iyagu maaragtay ay yidhahdaan na kala qabta iyadoo waddankuna dee shuruuc leeyo wax la isku hayaana uu qodob hebel yahay oo wax madaxweyne ku xidhan aan ahayn wax sharciga dalka ay ku xidhan ay tahay haddana mar walba sidii wuxuu wadeen hab ah uun aynu isu tanaasulno wax la isaga kaco oon sharciyad ahayn ayuu runtii ah maaraye madaxweynaha somalilan wuxuu socdaal ku marayaa gobolada somalilan galbeedka boorame uu ka yimi iyo hadda uu laascanood ku sugan yahay safarka madaxweynuhu suu kula muuqdaa iyadoo meelo badan oo uu tegayna runtii sida boorame iyo burco su-aalaha la isweydiinayay uu garoomada ay ku saabsanaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan safar buu ku maray gobolada dalka wuxuu kasoo bilaabay boorame safarkaasi wuxuu daarnaa 3 arrimood buu daarnaa inuu madaxweynuhu jaamacadihii haddii burcadii haddii boorame uu ka qayb galo inuu mashaariic dowladda fulisay oo tiro badan oo xadhigga ka jaro iyo inuu shacbigiisa xaaladii ku sugay maadaama madaxweyne qaranka yahay uu soo ogaado shacbiga reer somaliland waxay kaga jawaabeen booqashada madaxweynaha from boorama ilaa tukaraq ilaa oodweyne madaxweynaha in loo riyaaqay shacbiga oo dhan uu istaagay waxaan maleeyahay qolada mucaaradku ma seexan markii madaxweynaha saa loo soo dhaway wiigaa ma seexan waxay kaga soo jawaabeen xalay toole xogeyaha guudiyo inay cay TV-ga madaxweynaha la soo fadhiistaan madaxweynuhu inuu taageeradii shacbiga shalay 5% helayna way caday oo sanaaduuqda ka waramay state ku ka sareeyay maanta inay ummaddu la socotana TV-yada duubanta ummadoo dhan way arkaysaa xisbigu hadduu fashilmana oo ra'yiga dadka ku hor yimaadana inuu aqbalo ra'yigiisa weeyaan maaha laakiin inuu madaxweynihii qaranka hor state hadalla aan munaasib hayn oon laaqi hayn in runtii xisbi qaran uu madaxweynaha u soo jeediyo haddii cid Somaliland la difaacayo haddii madaxweyne la maagayo bal waxaan maanta weydiinayaa xisbiga wadani xogayihiisa guud iyo murashaxiisa waxaan weydiinayaa waliba carabtu waxay tiraa ataxadda waan challenge garanayaa waan carinayaa bal weligood kilib ay leeyihiin in Soomaaliya kula hadlayaan ama farmaajo Somaliland maagay ee wax walba ku sameeyay ama xasan ka maanta inoo soo buuayay madaxweynuhu jawaabayay bal erey ay yiraahdeen ada xasan oo wariye ay ka soo saar waxay oran doonaan xisbiga kulmiye hadii jir Soomaaliyeed buu nagu eedeeyaa oo hadii jir iyagu arinta beelaynaya laakiin anigu taa beesha la sheegayna waa ka dhashay min reer Soomaaliland waana taana xisbiga wadani oo dhanna ma laakiin hoggaanka xisbigani haddii qaranka Soomaaliland Soomaaliya ay tiriid ku tahay wiiligi erey laga maahay ummadana laga rabaa inay u sheegaan maxay u hadliyaan masir baa laga hayaa waxa la xogayaa guud madaxweyne Muuse Aflagaada kaaga ma baahna kaamana mudna xasan sheekh oo Mareykanka tago Soomaaliya carqaladeeda u tagay ayaa adiga murashaxaaga la doonayay inay erey tiraahdo shacbigu taaswiid ka sugaya xisbiga isaga waan ku mahambaliyeynaya markay noqoto qadiyadda Somaliland meel bi xisbi ku biyo kala taagay waana darkiisa gudoomiye Faysal Horeysiya dambayso haddii xamar daniheen iyo qadiyadeena ay taabato uu ka hadlaa markaba bal xisbigan dhan ee 40% dadkii shacbiga reer Somaliland helay ee murashaxoodu aanu erey oran kareen farmaajana aanu oran xasanna aanu oran kareen soo arrin la baaro u baahan ma arinta yaab kale dilka hore ka dambeeyay madaxweynaha qaranka ee sharafta ka mudan iyagana madaxweynahoodii ah xisbi qaran weey halkan ay leeyihiin waan soo soconaa qofkii fadhiyay weey qofka bari lagu xisaabinayo weey inta ixtiraamka ka gudbaan bay waxay ku hadlaan halkan kaga celin karmaayo waxaan u qabin bay runtii ku hadlaan iyagoo ay xitaa sheegayay madaxweynuhu uu dhaanteynay maartay xubno kale ka mid ah ay madaxweynaha waxba uma dhameyn madaxweynuhu wuxuu dhaanteeyay markuu dariiqii siyaasiga ee Soomaaliland ay mareysay uu sugay sharciyadina la iskaga adkaa shacbigiisa oo dhan baan u soo baxay taageeradii madaxweynaha loo muujiyay baa keentay dhaantada cidaan waxba diyaar u ahay ee ururada lagu furay ee ururadii la tartamayaan ee maanta walba haarsan horta wax xisbiyada mucaaradka
laakiin haddaan xukuumaddiinahay dariiqaan marina waanu garanaynaa waxaananu haysanaa hogaamiye habeenkii xamarna soo weerartana u jawaabaya haddii faras soo loogu keenana fuuli karaya haddii dadku dhaanteeyaana la dhaanteyn karaya haddii waddanka la soo weerarina qorigiisa qaadan karaya bal waxaad weydiisaa khadar adigu hogaamiyahaada wadaa waa kee waxba ku dheeraan maayo isagaa la dhan ka sheegay oo yidhi right choice maaha haddana uu la shaqeeya qofkii uu lahaa right choice maaha oo maaragtay waanu ku qasbannahay dee markuu meel soo istaagana maray miisi kusoo dul codeeyaan iyo maray qof daba dhigaan waxaa dhan yidhaahdaba dee horta siyaasadda ku saabsantay anigu madaxweynahayga mana daba istaago waxna uma sheegnay isagaa waddankan aragtidiisa ku hogaamiya maaray waxa la isweydiin karaa adigu waxaa tahay maareeyihii hay-adda duulista iyo hawada ee somaliland shaqadaadu waa garoomada arrimahaas horumarintooda wax ka qabashadooda maxaa arrinta siyaasadda iyo xisbi u jawaabista iyo waxa ku geliyay xasan xafiiskan aad igu timid waa xafiiskii wasiir cali maxamed oo cadda fadhiyi jiray maxamuud xaashi fadhiyi jiray cadaaniyii wasiiradii ka dambeeyay fadhiyi jiray hay-adda duulista iyo madaarada hay-ad baa loo rogay laakiin waa wasaaraddii duulista magaceedu sideedabana maareeya markaa tahay waxaan ahay xubin ka tirsan golaha dhexe xisbiga kulmiye shaqaale dowladeedna ma yihi waxaan ahay dadka siyaasiyiinta ee dowladda manaasibta siyaasiga u haya xisbigana ka tirsan haddii anigu maanta aan ka hadli waayo qof kaloo iga mudan oo ka hadli lahaa horta ma jiro kuwa hadlayda iyaga u hadlaa waa qaar aan dee xilal runtii muuqdaba aan haynin waanan isleeyahay inaan arrimaha qaar aniga iyo dadka mas-uuliyiinta ay bayaamiyaan muhiim bay u tahay qaranka runtii